بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka baranno weydiimahan kale ah what is purchasing power and what is buying power aan ku hormarno in aan qeexno awoodda iibsiga ama purchasing power waxaana lagu qeexi karaa in ay tahay tusaale halkii dollar meeqa alaab ama adeeg ayaa lagu iibsan karaa si kale haddaan u dhigno waa qiimaha lacagta waddanka marka lagu cabiro tirada badeecadaha ama adeegyada lagu iibsan karo tusaale ahaan 100,000 oo shilin Soomaali ah meeqa koob oo shaah ah ayay goysaa haddaba awoodda iibsiga lacagaha waxaa saameeya arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin sicir bararka waayo mar waliba oo sicir bararka sare aado awoodda lacagta hoos ayay aadaa sidoo kalena tirada alaabta lagu gadan karo lacagta hoos ayay u dhacdaa arrinta kale ee saameysa awoodda iibsiga lacagta waxa ay tahay dulsaarka ama interest rate oo haddii dulsaarka sare aado awoodda deynsiga lacagaha hoos ayay aadaysaa haddaba awoodda iibsiga lacagta hoos ayay u dhacaysaa qaybta labaad ee qeexidda waa muhiim inaan ogaano buying power midaas oo lagu qeexi karo in ay tahay lacagta uu haysto qofka macmiilka ah middaa uu ku gadan karo badeecado ama adeeg tusaale haddii qofka uu heli karo maalgelin ama dakhli badan uu soo galo macmiilka lacagta uu helayo uu ku gadan karo badeecado ama adeegyo sare ayay aadaysaa gunaanad purchasing power waxa ay cabirtaa awoodda lacagta halka buying power ay cabirto tirada lacagta uu heli karo macmiilka si uu badeecado ama adeeg ugu gato xog dheeraada oo ku saabsan qeexidda dulsaarka ka dhegeysa lifaaqa hoose oo aan hadda kor kaga soo hadalnay mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo